suqdatu samarqand taarikhda waa ku aragteen waxay yidhahdaan jannaatu dunya arbaca baa la odhan jiray jannada dunidu waa afar baa la odhan jiray suqdatu samarqanda baa ka mid ahayd afarta la tirin jiray suqdada la sheegayo waa tuulooyinka magaalooyinka yarar ku xeerxeera samarqanda waxay yidhahdeen 5 maalmood oo aad dhan kastaba u socoto 5 maalmood socod ah ayaa beer iyo bustaan iyo dhul cagaaran ahaan jirtay waxay yidhahdeen meesheeda sare haddaad korto abidkaa saxaare iyo meel xun ishaa qaban mayso webiyadaa wada dareeri jiray dhul aad u qurux badan buu ahaa dad aad u tiro badanoo muslimiin inay degan yihiin magaalada bukhaara wixii uu laayay mooyaane wixii uu soo kaxaystay maxaabis buu soo kaxeeyey ibnu kathiir maxaabis ibnulahir aan idhaahdo ibnulahir maxaabistaa markuu ka warramayo wuxuu leeyahay qofkii daala inta lagu soo socdo bukhaara iyo loo kala socday qofkii daala ama socon kari waaya waa la dilaa inta kalena waa la raraa waa inay socotaa haddaad daasha oo wax lagu dhibo ama qaadi karo ama socon kari waydana waa lagu dilaya dee dadkii dilkay ka cararayaane qofkii ku ruushin karaaba waa soo socday samarqando markii loo soo dhowaadayba wuxuu rabaa inuu reer samarqando bajiyo inta aanu dagaal la gelin maxaabistii muslimiinta intuu qaybqaybiyey ayuu 10kii walba calan buu u dhiibay kii ah calamadii tataarka ah 10kii qof baa calan buu siiyey waxay reer samarqando arkeenuun waddan dhan oo calankii wada sita oo soo socda waaba muslimiintii maxaabista ahayd kuwan calanka sitaa ciidamadiina waa ka sii dambeeyaan markii meeshii u arkeen dadkii haziima nafsiya baa ku dhacay qalbi jab maxaabistii wuxuu ku qasbay inay dagaalamaan haddii kale waa laydin laynayaa buu yidhi ciidankiisa qoladii gamuunlayd ahayd ama waxganaysayna wuxuu yidhi nin walba maxbuus qabso kaxayso gaashaanku waa isaga isu dhig dabeetana gamuunkaagana rid kanna ku beegnow hadduu nuuxnuuxsadana gowrac waxaana yidhahdaan shield bashariya yacni dad lagu gabbado ayuu baaqigiina ka dhigtay magaalada dacalkeedii markuu soo gaadhay si magaalada loo argagaxgeliyo wixii intaasoo dhan ka soo badbaaday magaalada dacalkeedii markii uu yimina wuxuu idhi ku hor gowrac magaalada baaqigiina halkaa birta lagu mariyey reer samarqando markaa naftii baa isugu timi reer samarqanda naftii baa haysata reer samarqanda waxay isku dayeen boqorkii meesha maray 50,000 oo askari buu u sii dhigay oo uu meeshan kaga tegey 50,000 ee askari ee meesha joogay ee madaxdoodiiba ka tagtay iyana waa cabsadeen tiradu wax ma tarto ee dadka tayadiisa iyo iimaankiisa iyo intay alla rumaysayin baa wax badan tara magaaladii markii dhan walba xisaar lagaga sameeyey go'doomin markii dhan walba lagaga sameeyey ayuu ciidankii dhammaaye meesha magaalada lagaga sii tegey waxay ahayd inuu magaalada ka soo baxo dibadda ku dagaalamo dibadda uma bixine magaaladii gudaheedii buu galay qalcaadkii dadku ku jireen buu la galay isla markaana waxay gaansadeen go'aan ah inay isdhiibaan dabeetana dadkii magaalada joogaa ku qayliyo waxaa la isku dayay in la qanciyo fula baqa cararaya dee cidima joojin karto waa diideen waxay aqbaleen samarqando magaaladii samarqanda la odhan jiray inay iyana dhiibaan dadkii markuu sidaa arkay culammadii iyo dadkii baa wada hadlay waxa la yidhi war kuwane askarna maa cidinayna difaaci maysa aan isdifaacno aan wax iska celinno 70,000 ayaa markaa soo baxay oo dadkii magaalada degganaaya sheefoodiiyo warmahooda qaato yidhi waa isdifaacaynaa dadka kani waa dad xamaasade hayso laakiin maaha dad military trained ah dad ciidannimo loo tababaray maaha waa dad u nacay iyagoo faramadhan inta loo yimaado in birta la mariyo oo la gowraco waayo waxay ogyihiin magaaladii dhammayd ay isdhibtee bukhaara ahaydba sidii loo galay
marka kollayba waa dhimanaysaan bay leeyihin inay idinkoo soo jeeda dhinta. waa soo baxeen. jinkis khan waa khabiid taagtiyahana 70,000 markay soo baxeen oo u garanaya inaan ahayn raggii militariga ahaa ee dhabta ahaa ayuu wuxuu sameeyey taktiig dagaal oo ah aan u baqa cararo. dadkii markii la isku soo baxayba wuu u baqa cararay. ciidankiisii wuxuu faray inay baqa carar sameeyaan. baqa cararku waa inaad iska dhigto sidii nin jabay oo cararaya oo tegaya, laakiin xeelad dagaal buu wadaa ma rabo. waa soo baqa cararay. dadkii awalba xamaasadaysanana waxay islaahayeen wallahi waa kaa gaalka idiin jabay, seeftaa lagala daba cararay, waa laga soo daba aguumay. ciidamadiisii qaybuu meel sii dhigay. dadkii markuu magaaladii kala baxay ee uu gaar ula baxay ayuu kamiinadii xagga dambe ka mareen. waxaa laga xidhay xaggii magaalada iyo midadka ay ka heli lahaayeen. dabeetana labada dhinac baa askartiisii ka gashay. 70,000kaba madaxa laga jaray. 70,000 ee soo baxay 70,000ba madaxa laga jaray. dufca waaxida mar keliya 70,000 oo reer Samarqanda ah oo intoodii iimaanku uu ku jira wax isbaday ah iyagana la gumaaday. maxaa soo hadhay? magaaladii buu ku soo noqday markaasi oo go'doomiskii buu ku bilaabay. ciidankii 50,000 ee war dagaalama looga taag waaye gudaha ku jiray jinkis khan bay la xidhiidheen. waxay idhahdeen waa isdhiibaynaa laakiin nabadgelyana sii. dadka intii kale magaalada ku hadhay way diideen. war saani si maaha baa la yidhi. qoladii ciidanka ahayd way ku adkaysatay. tataarkuna wuxuu yidhi nabadgelyadaan ogolay. dabeetana albaabadii magaaladay qasab ku subeen. qasab bay ku fureen. waa askar shacabtana ka adag. waa halkii gabayaaga carbeed muxuu lahaa asadun calaya wa fi lxuruubi nacaamatun. aniga buu yidhi markaa way arkaana waa libaax, dagaal markuu dhacana waa goraya buu yidhi, waa cararaya. waa askar shacabkan iyo masaakiintanna ka adag. halka raggu isku haya marka la taagana calanka cad bay geynayaan. dadkii waxay ku qasbeen albaabada in la furo. magaaladii Samarqanda ahayd albaabadaa loo furay. dabeetana jinkis khan iyo ciidankiisii baa yimi. wuxuu yidhi shuruuda heshiiskee nabadgelyada ku helaysaan waxa weeyaan 1 hubka soo dhiiba iyo fardaha iyo xoolaha. idinkana waxaan idin gaadhsiinayaa dhul nabada iyo meeshii aad rabteen. waa ciidankii dee dowladda. markaa wuxuu leeyay wixii huba iyo fardo iyo dawaab aad rarataan, xoolo wixii ah la soo wareejiyo. idinkana waan idin geynaya, waa idin kaxaynayaa. dhul nabada meeshii aad doonaysaan baan idin qadabadsiinaya. waa rag dee jabay. yani fulaha haddii inan yari u hanjabo, inanka yar xooggiisu uma muuqdee digdigtiisaa u muuqata. waa jabeen nimanka kani. maadaama ay jabeen, hubkii iyo wixiina waxay idhaahdeen waa kan naga qabo. ciidanku wixii uu hub haystay meel buu ka dhigay. waa un nidaamkan maantaba la isticmaalay. cunaqabatayn ku soo roga, hubkaa laga dhigo, yaan waxba laga iibinin. waa kan maanta dambena oo lagu duulaa marka wax walba wakhtiga laga dhigo. hubkao dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay. dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan. wixii xoolaana la qaado, dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsoonyiin inta ay ka sheegayaan. dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsadoo la kaxaysta aanu cuntaminay ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay ha la dilo. jaamica magaalada, masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana ha la gubo.
jinkis khan magaalada tan dhulkuu la siba bukhaaro wixii ku dhaceen samarqanda iminkana sidani ay socoto cid muslima oo soo caawisay oo soo kacdayna ma jirin boqor yaroo waliba wuxuu islaaday adigu dowladdaadii yarayd iyo xuduuddaadii iyo intaadii iyo askartaadii iyo waxaaga waad haysataa reer hebel baa la laynaya adiga maxaa kaa galay bale waxaabaa laga yaabay inuu ku farxayo dee dagaallo horay wada galena ways hayeen waxbaa la yaamin waa wax maanta dunida ka socdowne falujaa la liqaya inta kalea daawanaysa falastiin baa la liqaya inta kalea daawanaysa waa nafsi shay jinkis khan magaaladii samarqanda la yidhaahdo samarqand ayuu fadhiistay dabeetana wuxuu yidhi magaalooyinkan iyo layntooda tani wakhti badan bay iga luminaysa magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayay iga luminaysa ee maxaan samaynayaa 20,000 ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dowladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo aa eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin diray isna wuxuu degey samarqanduu iska degey utlubuuha ina kaana walow tacallaqa bisamaa buu yidhi bay idhaaheen meel kasta uu jiro ninkaas raadiya samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin almuslima u fiirso waa 20,000 oo askari dowlad dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexda ayuu u diraya waa caasimadii waddanka meeshuu ku socdaa 20,000 baanu u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka ninkii moxamed ibnu khawaarzim shaah ahaa waa kii cararay magaaladiisii orjanda lo odhan jiray buu tegey wixii uu ciidan urursan kara u urursaday meeshii buu isu joogay wakhti yarba intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay organda maraya organda waxaa mara nahru jiixoonkaynu sheegayno webiga markaa dhankiisa galbeed bay magaaladu ku taallaa dabeetana webiga sad weyn buu leeyahy yacni wuxuu leeyahay biyo xidheen weyn ayay meesha ka samaysteen 20,000 ee askari oo yaacayo tataarka ahaabaa soo galay dhinacii bari bayse soo taageen webaa ka xiga magaaladii say u tallaabi doonaan qolada tani waxay arkaan mar haddii webigii weynaa dee meesha ka xiga inaan cidina doonyana ma joogaanoo meesha wixii yaallay waa laga qaaday lama rajaynaya in cidi ka soo tallowdo taktiik military bay nimankanina isticmaaleen markay meesha yimaadeen waxba waayeen looxaan bay dhiseen dabeetana harag bay ku dahaadheen loox xeedhoo kale la sameeyey harag baa dabeetana lagu dahaadhay wixii qalabee ka qoyayay oo dhan baa lagu guray dabeetana fardihii baa laga daadegay faraskaa webiga lagu ridayaa ninkana farasku dabada qabsanaya looxan weyn iyo waxaana gacantu ku qaadaya farduhu waa dabbaal yaqaanin faraskaa dabbaalanaya oo ka tallaabaya askariguna faraskaasuu dabada haysanaya askariguna wuxuu gacanta kale ku haynayaa bahashan dhan buu jiidaya looxanana alaabtu saarantuu jiidaya nidaamkaasay kaga tallaabeen 20,000 ee askari iyo qalabkoodiiba xagga shishaa loo tallaabiyey intii waxaanoo ciidani soo tallaabayaan xaggee lagu maqnaa dowladda mukhaabaraadkeedii miyaa la hurday sidee wax ahaayeen lama garanayo moxamed khawaarzim shaah iyo ciidankiisii wuxuunbay idhaa kala qaadeen nimankii ciidankii tataarka oo ka soo tallaabay webigii oo dhankii kala taagan moxamed khawaarzim shaah markuu ogaaday in lasoo tallaabay koox ciidankiisii ka mida iyo waxbuu kaxaystay waa dhaqaajiyey
waa ka baxay magaaladii